Anta halkan aan ku soo gaarnay 3 habeen iyo 3 maalmood baan ku soo soconay deegaamada aan u kala xuduudda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa xukuumaddu ay ka wada dadaal xoogan oo lagu soo daabulayo ardayda deeqda waxbarasho ka helay dalka Itoobiya dalkaas ugu maqnaa waxbarashada waxana halkani oo xuduudda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya maanta soo gaadhay wajiga labaad ee ardayda ka imanaya dalka Itoobiya ku soo laabanaya dalka Soomaaliland waxana xuduudda Wajaale heegan ku ah maamulka degmada Wajaale oo soo dhaweeyay ardaydani waxana ardaydina halkaas loogu sameeyay baadhitaan la xiriira cudurka coronavirus waxana la siiyay talooyin iyo wacyigelin la xiriira ka hortagga iyo iska difaacidda cudurkaasi sidoo kale maamulka ayaa ka codsaday ardaydani markay tagaan gurigii iyo goobahoogii inay iskarantiimeeyaan muddo 14 cisho maadaama hadda xilligan ardaydina ay yihiin arday caafimaad qaba kana bad qaba cudurkaasi goran waxa halkaas ka hadlay mas'uul ka socday safaaradda Soomaaliland ku leedahay Itoobiya iyo sidoo kale arday kamid ah ardaydani ku soo laabtay dalkooda dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland wax qabad ka ballaaran ee ardayda ay u qabatay ee ay kaga soo qaaday ilaa deegaamadii ay joogeen waa dareemi kartaa anagu waxaan soo soconay maanta halkan aan ku soo gaarnay 3 habeen iyo 3 maalmood baan ku soo soconay deegaamada aan u kala wajigii labaad ee waxaan u joognaa ardaydii Soomaaliland ee scholarship ka ahayd aan soo celinay safaaradda ahaan waxaan ka qayb qaadanay ardayga inaanu xogtiisa marka hore helno markaan xogteedii helnay waanu amba bixinay ardaydii iyo waxaan ka soo amba bixinay jaamacadoodii safaaraddan iskugu keenay safaaraddii markaan iskugu keenay cuntadoodii accommodationkoodii waxay u baahnaayeen dhammaan u diyaarinay waxaan soo saarnay basaskan soo saarnay toos Wajaale anigoo taajeegii ay safaaraddu soo dirtay inaan xaggan ku qaabilo qaybtii labaad baan maanta isdhaafinaynaa oo 85 baaritaan baan sameynay wacyigelin baan sameynay haddana waxaan doonaynaa inaan gawadhidii saarno gabagabna halkaas xogayaha fulinta dowladda hoose ee magaalada Wajaale Cabdilaahi Xasan Samaale iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada Mursal Nuux Ismaan waxaana ay yiraahdeen scholarship-ka Itoobiya ugu maqnayd ee xaaladda wadanka ama heer adduunyada ka dhacday ay soo celisay ee maanta dalkoogii ku soo guriyo noqday waan soo dhaweynaynaa waxaan fariin ahaan kullay waa niman dhalinyaro oo waqtiga la socda loo baahan yahay inaynu foojignaan fara badan oo shakhsi iyo qoys iyo dalba aynu yeelano sida loo wada taagan yahay Wajaale bulshadeeda ku nool waxaanu gaarsiinaynaa halkan uga faa'iideysanaynaa tahay shakhsi iyo hadday tahay xaafad iyo hadday meher tahayba waxaan leenahay hal la samaysto goobtii farxalka marka waxaan leenahay meheradaha loo sameeyo goob farxal xaafadaha loo sameeyo goob farxal dhulka la iskugu yimaado waxaanu amar ku bixinay in loo sameeyo goob farxal ardaydii Soomaaliland wajigii labaad oo saaka halkan aan ku sii sabootiyano oo Soomaaliland u gudbaya haddaanu maamulkii Wajaalanahay iyo hay'adihii nabadgelyaduba heegan ayay u yihiin hadda halkan waxaanu ku sii sabootiyeynaa 81 arday shalay toolana waxa halkan la dhaafay oo aan bixinay 185 anagu fulinana ka maamul ahaan wareegtadii ay soo saareen gudida heer qaran ee uu magacaabay madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland totally sideeda warta xamaamiyada waa la xiray inuu diranaal beerkooyinka la seexdo inay dhigaan muxuu ahaayay meelihii farxalka lagu falxalanayay shaambooyadii saamuuntii wixii oo dhan inay ku diyaariyaan baa la doonayay meerada laga waayo albaabada la isku dhufanaya way la xaaji telefishinka qaranka